hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeq waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsato wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada aad ku qabto wax kaloo ku deeqi karaa ma jiraan soomaaliyay dantaada u jeeso iska daa indhahaad u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanay warkacay aynu tabcanne beereenna aan tabcanno oo baddeenna kala soo baxna wax ku yaal oo xooleenna aan xanaanaysanno aan ku noolaanno wixii waxayna dheer aynu kaalmaysanno asaan cadow ku ahayn dalkeenna iyo dadkeenna arrinnu intaas weeye diinta aan u gudbo nabigeennii suubanaa nabi maxamed tawrad buu sameeyey ilaah baa u dhiibay tawradda ku ahneeyey tawrad buu sameeyey meel adduunka aad tagto aadan dad islaama ku arkayn yaa fidiyey waxa yaa gaarsiiyey tawraddii nabi maxamed loo soo dhiibay ilaah u soo dhiibay baa fidisay oo qof walba oo islaama taasaa saaran gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan hor dhegaysta waxaynu caabudnaa waa ilaahay weynaayo waaxid ah wuxuu inoo soo mariyey oo inoogu sheegay dariiqaan raacinayna kitaabkiisa kariimka ah wuxuu inoogu soo dhiibay rasuulkeennii suubanaa inuu inoogu soo dhiibay ha inoogu soo dhiibee waxaa halkaas ka soo ifbaxay ficilkii iyo qawlkii nebigu uu ka tegey ayaa ka soo ifbaxay xadiis buu noqday marka qof walba dariiqadiisa ha haysta hadduu doono laakiin midka inaga dhexeeyaa waa tiirkaas dariiqadaada wado laakiin kaas uu ilaahay guddoonshay ummaddaas aan abuurtay inta midowdaan ha kala furfurmina taasoo ha noqoto asalkii dariiqa la raacaya kaas way ku dhaqaaqeen mahad iyo ammaanba waa u jeedinaynaa haddaan taariikhda dib u raaco culimmadii la tirinaayey ama tawriyiintii la tirinaya magacyadooda waxay ahayn kuwii badbaadiyey kollayba dadka soomaaliyeed inay baaqi ku ahaadaan islaamnimadooda dawladdu markii ay gaarto go'aan ama sharciga qaranka la dhigo fuliyayaal bay u baahantay de fuliyayaalkii adinka weeyaan waacidiinta weeyaan dariiqooyinka weeyaan madaxda masaajidka weeyaan iyagaa la rabaa inay fuliyaan iyagiiyo wasaaraddooda yaa mas-uuliyadda dul saaran dagaalka labaad waxa weeyaan midka dhaqaalaha ah waad ogtihiin maciishadu meesha ay sii marayso haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xidhanno adkaysanno aynaan tabcinna weligaan ka bixi mayno gun iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma gun iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaamuu leeyahay oo maanu inta ilaahayn cuskanno iyo nafteenna maynu qof yaanba inta qaato waa ka halkaa dow ka baxaye maanu wax ku abuurno bal qof walba gurigiisa muu ku abuuro geed lima inuu bixiyo in kala arkee oo geed babaaya ku abuura oo geed cambaa ku abuura waa baxaya qof gurigiisa uusan baxayn ma jirto hortiisa waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeedsano tacab kii badgalaa ha galo kii biri galaa beer ha ka doonto kii xoola haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kaleeto oo qiimo le qabanaya ha qabto qof gaajaysano gob ma ah gun wey wixii la rabo iyo dantii la rabaa laga samaystaa oo maxaa nagu kalifaya inaanu saas u gurowno dadkeenna inaan jahayna doonaya innagaa la rabaa inaan jahayno tan saddexaad waa dagaalka shacbigeenna lagu abuuray in maanta 16 sano kadib oo dulligii foosh xumaa aynu ka soo baxnay dad ahaan iyo qaran ahaanba haddana la doonaya dib in loogu celiyo qabiilkii xumaa oo isticmaar ka dambeeyo waa isticmaarka xabashida waxaa loo baahan yahay ummadeenna inaynu hanuunino oo culimadiinaan waaweyno weliba aad marada dhexda ugu xidhataan ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inay ku tarsaasiyaan oo kor ugu hadlaan oo si geesinima ugu hadlaan inay ummadooda toosiyaan oo ka hanuuniyaan dariiqa jahannamka ah dariiqa muslimka inay ku leexiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi